السلام عليكم. haddii aad maqli jirtay musuqmaasuq Soomaali waa meheradeedii waxaan ku hayaa iyada oo dhaba xaaska wasiirka arrimaha dibadda ayaa lagu eedeeyay lacag malaayiin dollar ah in ay lunsatay waliba lacagtaasi waxa la yaab leh dadka loogu talagalay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee wadanka Mareykanka ayaa lagu xiray haweeneydan 44 sano jirka ee u dhaxday wasiirka arrimaha dibadda kadib markii lagu eedeeyay in ay lunsatay lacag malaayiin dollar ah oo loogu talagalay dad Soomaaliyeed haddaba sidee bay ku lunsatay lacagtan maxaase musuqmaasuqa Soomaalida rag iyo dumarba meherad uga dhigay waxaan eegi doonaa sababta loo xiray lunsashada lacagtaasi tirada ay la eg tahay iyo sida loogu soo oogay iyadoo hadda la soo warinayo in haweeneydan xabsiga la dhigay sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waraysi uu bixiyay wuxuu sheegay in isaga farmaajo hadda ka hor kulan dhexmaray ayuu ka sheekay sidoo kale qadiyada badda ee Itoobiya iyo Soomaaliland dhexmareysay wuxuu sheegay in Soomaali weyn ay ku adkaatay wuxuu yiri jaamacadii Carabta midowga Afrika iyo sidoo kale adduunweynaha intiisa kale ayaa naga eexday oo Soomaaliya la jirtay dagaalkaasna waa naga adkaa si cad ayuu u qirtay khudbad uu jeediyay sidoo kale hogaamiye firdhi ayaan ku hayaa qodobadaas aan eegayna waxaan ka codsanaynaa muuqaalka like saarto channelka aan subscribe soo tiraahdo waa mahadsantahay dacwad oogayaasha federaalka Mareykanka ayaa xiray oo dacwad ku soo oogay qofkii 75aad ee loo haysto in uu ku lug leeyahay musuqmaasuq baaxad weyn kaas oo lagu lunsaday lacag dhan 250 milyan oo dollarka Mareykanka ah haddaba waxaa lacagtan loogu talagalay quudinta caruurta xilligii uu socday cudurka COVID-19 ama coronavirus muna wacays firdhiye oo 44 sano jir ah Soomaali ah gaar ahaan reer Somaliland ayaa jimcihii lagu xiray magaalada Minneapolis waxaana lagu soo oogay tobaneeyo dacwadood oo ay ku jiraan khiyaano iyo sidoo kale xogo dhinaca isgaarsiinta ah laaluush iyo been xalaaleyn lacag sida uu sheegay xafiiska xeeralyaha guud ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee wadanka Mareykanka xog ay heshay ama xog aan helnay waxay sheegaysaa in muna wacays fidin ay markaas tahay xaaska wasiirka arrimaha dibadda Cabdiraxmaan Daahir Aadan sidoo kalena hore u soo noqday gudoomiyaha xisbiga wadani ee Mareykanka oo dhinaca Somaliland sida ay sheegayaan dacwad oogayaasha muna waxay jeebka ku shubatay qiyaastii adduun lacageed gaaraya ama ka badan 1 milyan oo dollar iyadoo oo si been u sheegtay 100,000 oo cunto nafaqo in ay siisay caruur danyar ah xilligii COVID-19 dacwad oogayaashu waxay sheegeen in lacagtaasi qaarkood ay dibadda u dirtay qaarna ay isaga bixisay lacag deymo ah oo lagu lahaa waxa la sheegay guri iyo gaari in ay ku iibsatay lacagta haweeneydan lagu magacaabo muna sidoo kale xudunta kiiskan ayaa waxa lagu leeyahay fadhigeeduba waxa uu yahay mas'uuliyiin lunsaday lacag aad u badan oo Mareykanka ku sugan oo la dabagalayo intii lagu guda jiray COVID-19 USDA waxay dabcisay sharciyadii si caruurta iyo qoysaska kale ee dhibaataysan wax loogu taro xilligaasi xaalad degdeg ah ayaa jirtay isla xisaabtan badan ma uusan jirin waxaana khasab ahayd in qof walba oo ka shaqeynaya institution sharciya ama hay'ad markaasi dawliya iyo kuwa maxalliyaba markaasi la siiyo taageero dhaqaale haweeneydan way ka faa'iideysatay fursadeedii dhaqaalahaas aad ku badan ayayna luusatay dadku waxay isweydiinayaan musuqa iyo Soomaalida maxaa cilaaqada oo ka dhaxeeya Soomaalida meel walba ay joogto shanta Soomaali Somaliland ugu yar Soomaalida Itoobiya dheh ama kilinka Soomaalida koonfureed noocay doontaba musuqmaasuqa waxba iskuma dooriyaan xataa adduunweynaha kale hadii ay tagaan dhac boob qabyaalad iyo musuqmaasuq waa meheradooda waa tii Suldaan Timcade oo hore u yiri abwaankii weynaa ee Soomaaliyeed musuqmaasuq Soomaali waa meheradeedii geesta kale hadaynu eegnana madaxweynihii hore ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waraysi laga qaaday wuxuu ku sheegay in Somaliland looga adkaaday dacwadii dhinaca yaraahda ee heshiiskii dhinaca muranka badda ee markaasi muranka badan dhaliyay ee Itoobiya ay ku qaadan rabtay qayb kamid ah biyaha Soomaali weyn wuxuu sheegay in jaamacadii Carabta iyo dalal kale ay ka eexdeen si cad oo raganimo leh ayuu u qirtay wuxuu yiri aan laga adkaaday isaga farmaajo sidoo kale kiis dhexmaray ayuu ka sheekeynaya Cabdiraxmaan Cirar laftirkii aan idhaahdo ee ninka lagu magacaabo firdhiye laftirkiisu aan kula wadaagay khudbad uu jeediyay muuqaalka like saar channelka subscribe soo dheh waachan la hadlo ku war ma adiga Soomaaliga ninkan ku soo qaaday oo soo keenaya aqli ba ina wadada sufraan wada isku keenis isoo gasto wuxuu wallahi dadku isaga aad xurriyahay inuu hado marka hore ka tagay
ayaa nin la soo diray arrimaha dibadda ee Ethiopia waxa brit ku toonka wax ku doonay ra'iisul wasaaraha muftiga misaaniga adiga waan soo wariyaarehe xagee wax ka qabanay khayr waxa uu talo maxaa loo wadaa waayeen wada aniga farto basnaan kharajka xafiiska madaxweynaha tagnay markii loo yeeray waxa kharaj show xaajigan abiye xagga kale wuxuu uga yeeray farmaajo wuxuu soo kaxaystay kharajkiisa markaan xafiisku dee meel badan fadhiyo meel kala soo iyo fadhiya labadii kharajyo uu reebo wuxuu labadii kala xafiis baan ugu tar أكثر بنو آخر وليه إنها شيسان وما حكيت كان إياس ونو أتكيه فما جاري أنو هيس بانو ديار رسولي أدواد قلانا سادي هدو قادة مر فرماتشو ونكي وحييه وحربون قرهبور هاي سيدي لو الشريب oo waxa meesha ka dhacay waxa isagu dan kale waa maya dee ileen arintu dee isaga laftiisa kids xagan waxaan kulkaan ku kaablad galayna waxa iyaga waxa war balantii Ramaphosa aanu ka sugeynay ayaa la arkan kicisay warkaas wuxuu leeyahay dee inaga isku xigna char baynu nahay wax walba oo dhawaynayna waraagana dee afkii diraasid ku haday waxaan ugu dhiibaya deetana isaga Farmaajo waa saaxiib waa markii Eritrea iyagii iswateen وكي واحد والبلد ده سيد كده هو ضد كورونا مركا أنا واحد هيدين إنك يجا كعصب مركون هو أتكلم كده أنا متكون شاغو أنا حزبي يبقى الرمان باي دورتي وعد بالي بدورتي فرنت اسمه ليدي كلا جوء بدل كلام هذا إلى أن يجي يكون نقضاء يجي يدرك أن تجانا تتناول حريواي الرسولي أوكي تسجل waxa marka anagu hadana waxa leeyahay waxa baxaya madaxweynaha Nigeria markaas uu yidhi jiray madaxweynaha protocol ku sidoo yalla saada tawad waa ma fadhina salka ka fadhino tana waxaan ku war imika halkan anagu arintaas waa arin culus tistoorka ku qoran tahay laba fargelin karo wala madaxweynaha wala wasiir taal ka soo tusto ina wada hadlo aduntii munaaq wala wuxuu waayahay maanta wala kala baxay kana laftiisu u bixi lahaa sidoo sheegay ardi karo ku soo way habeenimada diyaar baha dalka tubax dikla wayar waxa waayahay aan kala baxno degdeg soo jawaab marka waan midode hay'adihi ay ku khusaysan caalamka wax goor sheekadaas marka Farmaajo wuxuu yiri markii uu rahaa waa in Soomaaliland wixii gaaray laga loo garabsada Farmaajo wuxuu aanu markaa tago waxaan akhriyaa khudbada ku garabsanayo wixii dhacay waan akhri ka soo fududeeyay waxii ha Farmaajo laakiin uu fududeeyay sida uu fududeey karaayda ilaa xaggana barashar ma haystee iska yaraaf gobaad sibay hayd waayo uu yiri inaan ciidanaha oran buu yiri laakiin dee culays kala haysta ilaa isaga dad baa soo aduu ku daalata saaka inta inaan dee dadkii oo dhan dhaw reer maxay la tahay dadna biyo ki ku adkaystay heli hor aduu Farmaajo soo kaxayn Farmaajo la hadlo ku war ma aduu soorayo ninkan ku soo qaaday oo sahal keenaya aqli ba ina wadaad isku reeno cid isku keenaysa isla ugu gasto wuxuu wallahi danku isaga aad xur yahay inuu hado tawaati murakabada ka dhacay marka taasi hawl badan bay ahayd aad u isku heshiinay ninkii abiya markii damaadan markii dhaqaaq wada ku war shacabka dee haya waxa ku aniga saadan ma yihiin awood badan igu kaadib jimcooyinka ilaahay inagu manaystay waxa ugu weyn inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala ina ka dhigay dad islaama oo muslimiina oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala rumaysan iyo intii kale ee islaamnimadu wacanaysayba jimcooyinka waxa ka mid ah dowladnimada ilaahay subxaanahu wa ta'ala ina siiyey ee aynu harsanayno ilaahay subxaanahu wa ta'ala haynoo daayimiyo nimcooyinka ilaahay ina siiyey waxa ka mid ah amniga iyo xasiloonida aynu haysanno
nimcooyinka aynu haysanno waxaa ka mid ah inaynu caawa daah furayno doorashooyin qof iyo cod ah oo ay hirgelinayso dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo ay wakiil uga yihiin guddiga doorashooyinka iyo soodibaha qaranka oo caawa halka ay inala joogaan guddoomiye ku-xigeenkii guddigaas ee heer federaal iyo howlwadeenadii kale ee stateka iyo federaalkaba ka soconayay nimcooyinkaa faraha badan leh ee ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo hibeeyey aynu ilaashanno islaamnimada aynu ilaashanno dowladnimada aynu ilaashanno nabadgelyada aan ilaashanno doorashooyinkana fadhiga ha looga kaco haddii ilaahay ka dhigo waa u mahadnaqayaa martidan iyo ka qaybgalayaashan quruxda badan ee madasha fadhiya oo ugu horeeyo wasiirkeenna arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta saaxiibka ee wasiir cali yuusuf cali xoosh guddoomiyihii baarlamanka ku-xigeenkiisii xildhibaanadii federaalka halkaa waxaa fadhida walaashay sahra bundubte dhaqanka iyo isimada dhallinyarada iyo xildhibaanada golayaasha heer state waqooyi bari dhammaan iyo hablahan quruxda badan leh iyo dhallinyaradaba waa mahadsantiin waan idin salaamaya maanta bishu waxay ahayd 2 soddonkii baynu halkan joognay oo aynu halkan ku qabsannay doorashooyin xor ah oo xalaal ah oo aynu ku doorannay hoggaankii u sarreeyey ee dowlad goboleedka waqooyi bari 3 casho kadib inaynu isu nimaadno innaga oo daah furayna oo hirgelinayna doorashooyinkii isdiiwaangelintii doorashooyinkii qof iyo cod ee heer federaal oo guddigeedii inala joogaan runtii waa nasiib iyo ayaan aan la wada haysan waxaad mooddaa in xiddigu inoo toosan yahado aynu guulba guul xijinayno reer waqooyi bariyo dowladnimadan aynu haysanno halkay ka timi iyo waxay ku timid iyo waxaynu u soo marray innagu isaga sheekayn mayno soomaalina waxaan leenahay inaan halkan soo gaadhno hayaan dheer oo xinjirela baanu u soo marray hayaankaa guulaynu ku afmeeray guulihiina weli waa isu keen daba joogaan waxaynu maanta ku naaloonaynaa dowladnimo buuxda state buuxa soomaalinimo iyo midnimo iyo wadajir baynu ku naaloonaynaa waa rabitaankii shacabkeenna waa doonistii bulshadeenna waa xuquuqdii muwaadinka Soomaaliyeed oo deegaanada tan maanta si dhammaystiran uga hirgalay caawa waxaynu u joognaa ummad nala nahay inaynu daaha furno ololihii diiwaangelinta muwaadiniinta waqooyi bari isu diiwaan gelinayeen doorashooyinka qof iyo cod ee laga hirgelin doono dhammaan deegaanada waqooyi bari oo dhan doorashooyinka waxaa ugu soo horeeya doorashooyinkii golayaasha deegaanka waxaa xigi doona doorashooyinkii stateka ama inagu stateki qabsanaya waxaa inoo xigi doona doorashadii golayaasha baarlamanka aqal sare iyo golo shacab labadaba waxaa inoo xigi doona idamka ilaahay inaynu qabsanno doorashooyin qof iyo cod ah oo aynu ku dooran doonno
madaxdeena qaranka ee federaalka haddii la yidhaahdo qof kasta iyo muwaadin kasta oo Soomaaliyeed waxa maankiisa ku jira oo ka dhex guuxaya dadka uu hoggaanka ka dhiganaya laga soo bilaabo cidda isaga markaa ku matalaysa degmadiisa ama xaafadiisa ilaa laga gaaro madaxweynaha qaranka cid buu laabta ka jecel yahay inay shaqada u qabtaan oo u dhiiban lahaa haddiise doorashooyin aan la qabanayn sidii horeba u dhici jirtay rabitaankaaga iyo jacaylkaaga laabtaad ku haysanaysaa cidina kuma oga haddiise doorashooyinkan la qabto qof walbo inaga midihii wuxuu dooranayaa oo igmanayaa ciddii uu la jeclaa inay hoggaamiso markaasaa waxaa soo baxaya ilaa qaran ilaa state ilaa gobol ilaa degmo ilaa xaafad dad doortay dadkii ay ku qanacsanaayeen ee ay wax u diran lahaayeen oo ay ku kalsoon yihiin markaasaa waxaa la helayaa madax kala duwan heerarka ay joogaan kala duwan tahay iyo bulshadoodii oo israbta oo isku kalsoon bulsho iyo madax israbta baa horumar gaari karaysa ahamiyadda dimuqraadiyaddu intaa weeyaan innaga ka reer SSC ahaan ama ka reer waqooyi bari ahaan maxay inooga dhigan tahay doorashada tan ilaahay qof iyo cod baynu qabanaynaa oo ay ugu soo horeysay golayaasha deegaanka qodobka reer waqooyi bari oo hal isgaarsiiyo hana loo toogahayo in aynu doorashooyin qabsanno qof iyo cod ah waxay ka dhigan tahay afti dadkeena la weydiiyey inay yihiin qayb ka tirsan Soomaaliya oo midnimada u taagan doorashadaas golayaasha deegaanka ee u soo horeeya marka laga hirgeliyo dhulweynaha waqooyi bari xanay hadh weeyaan xanay ku hadh aynu ka faa'iidaysano fursaddan aynu uga faa'iideyno deegaankeenna aynu uga faa'iideyno bulshadeenna aynu uga faa'iideyno dadkeenna iyo deegaankeenna horumarkiisa iyo madaxdii hoggaamin lahayd inaan la soo baxnay innagu